بل اسمع لي يا وكليك قبل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وزيرك وسارد الرماء قدا يا ابني قرنك وزيرك وسارد هولها قود مسير كحيجينك حنانة حولها بڑا صاحبك قدومي كحيجينك صوص عدي دار طولو هدي بارلمانك لمان وزيرك وحبرشدا ماريها قدوميها مسلماسوكا بڑا صاحب كحيجينك ميركا مايردا ومانتا عبدالكريم نقضي ميركي هوري عاصمتا اما ميركي هوري ميردا عبد الرحمن محمود عيديد runtii iyo meeyar ku-xigeenka khadar xoogayaha guud ee dowladda hoose xildhibaanada golaha deegaanka xildhibaanadaydii golaha deegaankaanu ka mid ahayne maanta ay ugu dambayso oo halkan rag badan aan ka arkayo oonu hor salaamayo xildhibaan cabdicasiis aadan abane abtigii xasan shahar rag badan halkan ay ka fadhiyaan xildhibaan axmed siyaad rag badan baa halkan fadhiya ilyaas axmed daahir dhammaan intaan ilaawayba inta joogtaba 25 xildhibaan iyo 17 xildhibaan oo aan dhammaantood wada salaamayo xoogayii hore imankana xildhibaana dhammaantiin waan idin wada salaamayaa haddaan nin ka tago nin la qaato waa la isyar qaniinaa dhammaantiin waa idin salaamayaa salaadiinta haddaan qof ilaabay salaanta u dagaal badanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo dhammaan hablaha qaaliga ah dumarka sharafta leh ee halka ka soo qayb galay oo ay ka mid yihiin macahablihii musharaxiinta ahaa salaantu inta ay ku dhaafto marka u horraysa waa mahadnaq marka u horraysa xafladdan ilaaha weyne waaxidkaa baan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa ilaaha golihii deegaanka iyagaanu hayn oo shalayuuna ay ahayd markaanu la wareegnay 2012 aanu maantana 2021 wareejinayno ilaaha caafimaad qab nagu simay iyo cimri iyo xilkiyoonu sidii u haynay aanu maanta ku wareejinayna siday goluhu noogu doorteen kow ilaahaasaan u mahadnaqayaa oo la soo koobi karin abaalkiisa mahadnaqa ilaahay ka soko waxaan u mahadnaqayaa intii aan maayir ku-xigeenka ahaa muddadaasoo 9 sannadooda kow golihii deegaanka ee iga dhigay maayir ku-xigeenka caasimadda oo golahaygan maanta ah ayaan u mahadnaqayaa inta ka nool inta dhimatana ilaahay ha u naxariisto waxaa kaloon u mahadnaqayaa si gaara maayirka caasimadda cabdiraxmaan maxamuud caydiid abtigay runtii oonu golahana ku wada jirnay markii horena ahaa xildhibaanka noogu akhlaaqda fiican markii aniga lay dooranayeen maayir ku-xigeenka noqonayay ilaahay ha u naxariistee maayirkii layla doortay yuusuf warsame siciid buu ahaa markaanu 24 sidaa u eegnayna ninka qudha ee baashaasi hayn karaya ilaa dhammaadka dee waa cabdiraxmaan baan isloo waataa markhaati badoontii wakaa baashiisii hayay akhlaaqdiisa runtii iyo meelo badan ay cabdikariin iska shabahaanba hadday eedaabtii akhlaaqda noqoto iyo ixtiraamka aad iyo aad runtii labaduba way ixtiraam badan yihiin wallaahi ammaaniga ma aha labadaynaba aad bay u ixtiraam badan yihiin kii islaa 6 bilood ka bacdi cabdikariin meesha waad ka qaadayo iskaga quuso uu ixtiraam badan yahay iska dhamaystaa laga yaabaa mahadnaqayo hadalku iga lumin mahadnaqaa ka bacdi waxa kaloon u mahadnaqayaa dhammaan ciddii la shaqaysay waxaan u mahadnaqayaa reerkaygii barbar taagnaa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan faamiligayga oo dhan oo ay u horrayso dhammaan hooyaday gabadhayda walaaladay inamiyaha laba intaan walaalaanay ee ay barbar taagnaa intii aan xilkaa hayay waxa aanan marna ilaabi karayn oo si gaara ugu mahadnaqayaa kow magaalada hargeysa ee iyaduna ii soo dooratay inaan maayir ku-xigeenka noqdo xildhibaanka noqdo golaha ay doortee iyo reerkaygii markii hore isku kay raacay oo reer aad u ballaadhan iyaguna waxa kale oo aan u mahadnaqayaan mahadnaqa ku gunaanadayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane maxamed kaahin axmed mujaahidka ka nool 5 mujaahid runtii oo si wanaagsan intuu wasiirka arrimaha gudaha ahaa runtii maxamed si sharaf leh oo wanaagsan noola shaqeeyey odaytinimo leh waayeelnimo leh iyo mas-uuliyad leh
iyadeenina idinkuba wada mahadnaqleydeen oo dee madaxweynaha somaliland aad baan ugu mahadnaqayaa muuse biixi cabdi mahadnaqaa kabacdi kow haddaan waxaan ka yar hadlayaa marka u horraysa waxqabadkii waa yar dul marayaa maayirka caasimaddaa jooga inaan ka taabanayaa waxaanu dowladda hoose hargeysa waxaan halkan runtii iyagana aan ka hambalyeynayaa una mahadnaqayaa golihii naga horreeyey ee uu jiciir hogaaminayey ku-xigeenna ka ahaa urcadde halkay soo gaadhsiiyeen baanu ka sii qaadnay wakhtigu nagagamuu lumin in annagoo cadhaysan aanu kolba nidhaa waxba may qabanine annagaa waxaa qabannay golahan dambena waxaan doonaya inaan wakhtigu kaga lumine waxay qabteen una sheegtaan waxba annaga cambaarayntayada xumaan iyo wanaag waxaa lahay waan la tagnay idinku waxaad qabataan baa sheegi doontaan insha allahu tacaala iyagana aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa golaha hore halkii aanu ka qaadnay shaqaalaha dowladda hoose aad bay u yaraayeen halkan baa laga sheegi doonaa shaqaalo yaroo marka 3 loo qaybiyo meelo bay ahaayeen 3 meelood baanu shaqaalihii ka dhignay annagoo shaqo abuur iyo u samaynayna tahriibka la dagaalamayna waxaanu samaynay qalabkaa arkaysaane maanta halkani waxay ahaan jirtay maalintaan la wareegayna meel bannaan oo qofkii dahab buurtaa loogu sheegaa inuu soo lugayn jiray oo uu ka waayi jiray iminkana waa arkaysaan harka aynu ku jirniyo qalabka faraha badane meesha yaalla oo aanu ka keennay meelo aad u fogfog qalabkaas oo dhanna uu yahay asad ay dowladda hoose leeday waxaan halkan si gaara uga sii mahadnaqayaa xildhibaanka qalabkaa gacanta ku hayay oo xildhibaan siista ah iyo baashe injineerka istaag injineer ninkaa baashaa la yidhaha waa ninkii qalabkan isagiiyo ninkaa siistaba aad bay qalabkaa labadaa ninba ugu ammaanan yihiin si gaara waa nimankii halkaa markaanu qalabka keennay xidhxidhkeeda iyo hawsheeda iyo mas-uuliyaddeeda aanu runtii nagala shaqaynayay aad iyo aad iyagana aad baan ugu sii mahadnaqayaa qalabka intaa leeg dowladda hoose waxaa kaloo wareejinaysaa oo qalabkaa faraha badan ee aanu meenta indhihiinu idiin macalli yihiin aa arkaysaan ka mid a ee warshadda asfalka leh ee karasharkii leh ee wax walba leh waxaa jira waxa ay nagaga nasiib bateen golahan deegaanku GIS-ka waxa uu noqday inay caalamka caasimadda hargeysa ay la tallaabsato in dhulkii la isku dili jiray dhulkii la oran jiray 2 fayl baa ka wada baxay oo runtii haddii geometrika marka la bedelo aanu annagana noo ahayd un xadhig iyo shaqakeeri iyo qabsad geometrikii marka la bedelo ku kale dadkaa uu xumeeya runtii dee casayn labaad ka soo baxaysay annaguna aanu dhaliisha ku yeelanaynay markaanu ogaanana annaga iyo maxkamadu baanu tallaabo ka qaadaynay runtii wuu yaraaday dilkii dhulku wuu yaraaday meeshuu fayl ka baxo fayl dambe ka bixi maayo magaaladiina sistamkeedi xitaa dadkii la oran jiray dowladda hoose iyo loo kala sheekayn jiray dadka meesha way ka baxday waxa qofku isagoo maraykan jooga ayuu halkaa aabka ka soo qaadanayay qofuu buu soo dirsanayay waxaa la jeegaraynayaa qofka ID-giisa inuu magacu isleeyahay had iyo jeer dadkan dibadaha jooga baasaboorka magac kale ku haystaan kuwa markay halka joogaanna waa magac kale dhibaatooyinka u badanay dee qolooyinkii qalabkaa nagala shaqaynaya way fadhiyaan ibraahim iye way yaabeen dad la wada 2 magac leh runtii waxay ogaadeen in xaggaana mid kale la iskaga dhiibo xaggana magac kale jiro kaasoo xitaa sistamku diiday dee baalka 2 magac diiday ogolaan maayo 2 caseymoodna sistamkaasina waa dhaxal weyn oonu ku wareejin doonno golaha deegaanka magaalada hargeysa way idii cayiman tahay badkeediiyo intay leegtaba idii cayiman inta wadooyinkeeda airportka anigu markaan ingiriiska tago marka ugu horreysa waxaad qaadanaysaa buug yaroo wax tilmaamaya magaaladu waa inay yeelataa wax hadal qoraal oo kale oo wax tilmaamaya halka gaasdeeshinku yahay halka hudheelku yahay halka saldhigku yahay halka tareenku yahay meel kaste waxaad ka helaysaa waa GIS-ka runtii waxaana la shaacin doonaayo nasiib u yeelanaysaan magacyadii ama in la sheego addressingkii xaafad nambarkii iyo guri nambarkii iyo second nambarkiiba waa idii diyaaro waa shaacin doontaan haddii ilahaydha runtii qalabka noocaas oo kale waa cadow badan yahay ina hareeraha ka taagnaataan oo sii adkaysaan baanu idinka rajaynaynaa haddii ilahaydha waxyaabaha sidaa u wanaagsan way barobagaando badan yihiin way dhib badan yihiin waayo sistamka wanaagsan cidna ma ogola runtii idinkuna waydu arki doontaan qalabkaasi waa midaanu soo kordhinay dowladda hoose GIS-kaasina waa waxaanu soo kordhinay waxyaabo fara badan oo dee hadalka waa laysoo hambeeyaa kolley baayirkaan u hambayn doonaa haddii aan waxqabadka 3 inood aan kaga tago waa badanya waxqabadkayguye waxaanu samaynay iskuullo fara badan 45 iskuul baanu qaar aanu waxtarnay u fadhiyaa wasiirka waxbarashadu ayay ka kooban yihiin iyo qaar aanu duwahabeyn ku samaynay iyadoonu xilli dhaweydoo ID-nkiiyo la wareegnay waxyaabo fara badan bay dowladda hoose MCH yaanu samaynay waxaasoo dhan dib baan u dhigi doonaa haddaanu yar wecdo iyadana xagga siyaasadda
runtii intaan horta joogay labadii shay aana ilaabi karayn intii aan maayir ku-xigeenka ahaa 9 sannadood naxdin iyo farxadiba way soo martay waxa igu naxdin badnayd ilaahay ha u naxariistay isagii intii ummadii nebi maxamed be maalintii anigoo markii horena la yidhi golaha anigaa ugu yaraa waxaan ahaa maayir ku-xigeenka ugu yar golaha deegaanka maalintii 29 jir baan ahaa khibrad wanaagsanna waan haystoo dhowr iyo 10 sanna markaa dawladda hoose joogay marka lagu daro 9 sannadood 23 sannadood baan joogay maanta inaan tusaabaan doonayay 1997 bishii 5 warqadii laygu shaqaaleeyey ee uu qoray ilaahay u naxariistay cali xasan maxamuud oo xilligaa maayin ahaa cali xasan oo maalintaa laygu qoray karaani layga dhigay waa 24 sannadood oo khibrada ilaahay baan ugu mahadnaqayaa anigoo maanta 39 jira inaan haddana 24 sannadood oo khibrada haysto waa wax aad u weyn ilaahay agtiisa ilaahay baan ugu mahadnaqayaa maalintii igu naxdinta badneed waxay ahayd welibana golaha ugu yaraa ahaana maayir ku-xigeenka quraatee teeramkiisii dhammaystay aniga dee maayirkaa horena oo naga dhintay markii dambana cabdiraxmaan baanu dooranno waa kaanu wada dhammaysanay golihii ga horreeyey 3 maayir ku-xigeen bay marayeen maalinna mooshin laygama keenin waa kaftan badanayo shaqada laakiin aad baan ugu adkay maalin xitaa xildhibaanadayda waa kuwaas aynu ridna iskumay raacin dee nin wax yar damaaciyo daha dabadiisa meelaha ka idhaa ku-xigeen baan rabaa u jiraya laakiin inay soo fariisto yidhi maayir ku-xigeen baan rabaa walla idhaanu jirin iyo eedu ii soo sameeyo dee macquul ahayd waayo ninka madaxdii waa inuu haas ka kaftamabe waa inuu gacantiisa ilaaliyaa wuxuu saxeexayo ilaahayna wuu ni ilaaliyey haddaba waxay igu naxdin badnayd anigoo leelahaa inay yar baatay maalintii aan noqday maayir ku-xigeenka haddana maayirkaygii muddo yar ina injineer yuusuf warsame siciid uu xanuunsaday oo muddo yaroo dhowr wiig isagoo nala joogay aan 3 bilood haddana taariikhda noqday maayir iyo maayir ku-xigeenkii isku hayay 3 bilood maayir iyo maayir ku-xigeeniyeen ka badanba ilaahayna ku ilaaliyey meel khatar inaan saxiixin runtii maalintii haddana laygu yidhi intuu ilaahay igu adkeeyey telefoon nagu soo dhacay cabdiraxmaan buu ahaa qofkii ugu horreeyey sheegay in maanta caawa maayirkii ay tii sii noqotay horta markaasay igu naxdin badnay oo haddana maayirkii dhintay dee waa yar naxdin weyn runtii naxdintaasaa igu weyneyd waanu xallinay waanu is eegnay rag baa la tashaday ninkii noogu wanaagsanaa noogu macquulsanaa baanu markaa keenno cabdiraxmaana runtii waxa dhacday taasi waxay ahayd naxdintii u weyneed ee iga soo marta golaha farxaddii u weyneed ee soo martay intaan golaha joogayna qaranka oo dhan bay iga soo martayoo wallaahi waxay igu farxad badnayd yanaa maalintii madaxweynihii jamhuuriyadda guddoomiyihii xusbiga kulmiyaanu dhisaynay maalintuu 80 kun oo cod labadii xusbiye kale kaga badiyey ee la yidhi muuse bixi baa madaxweynaha horta intaan maayir ku-xigeenka ahaa maalintaasaa igu farxad badnayd ilaa run baan sheegayaaye maalintii igu farxadda badnayd igama aha gulwadanimo wallaahi waa iga daacad maalintaasay igu farxad badnaydoo qof waliba wuxuu jecel yahay tacabkiisii inuu arko runtii maalintaasina maalintii igu farxadda badnayd baa maanta oo ay dawladdii hoose aan maanta naga dhammaatay horta waxaan jeclaan lahaa maanta in annaga iyo xusbiyadaba ay naga wada dhammaato ay golaha deegaanka xusbiya ka soo baxaan inay ururadii ka soo baxaan nimankaasi ayaan jeclaa laakiin waxba ma dhaanto oo horta dee maalin dhaweydan hadlaya baan lahaa ninkii dunida loo daynaya ha igu diirsado ee waxaad iga dambaysaaba hebelow waa dayrta maanta horta dayrtiiunbay iga dambeeyaan tiina waxba ku tiigaali maayo 6 bilood kabacdi ururadaa la furanaya maayir ku-xigeenkii burcaa yidhi anigu urur baan furanayaa buu yidhi waar annagu furan mayne muuse biixiyo inakaahin baanu barbar taagnaanayna taana halkaasaa ka caddaynaya may maqlaysaan iyagaanu barbar taagnaanaynaa labadaa nin ee waaweyne waddanka u soo halgamay runtii ee dee haddii abaal u la celinaayo faqashtiina in laga kiciyey ayaynu barbar taagnaanaynaa dekedahana furay maanta ee aan maanta waxbaba doonayn inay waddankooda oo faraxsan arkaan raggaasaanu barbar taagnaanaynaa xusbigay labadaa nin furtaan kulmiyahoodaasaan weligood la joogaynaa haddii uu madaxweynuhu xil loo dhiibana waanu la joogaynaa haddaanu loo dhiibinna waanu la joogaynaa taana waan caddaysanaya waxay noqotay ma ismaqlaynaa soo ismaqal ma jiraa haddii ay noqoto waxa kale waarnimayo halka maalin dhaweyd waan dardaarmay waan baanay waxaan idhi waxaan ka soo jeedaa qoys 400 sannadood talinayay ab iyo abtiba sandalad baan ka soo jeedaa waxay war labadii inaan ee baarlamaanka hal la dhex gala baan idhi lama dhex gelin taladaydii may noqonin taladaydii lama qaadanin nin weyne waa kii taliya
taladaydii ma arkay inay qaadanayaan nimankii mucaaridka ahaa waxaan leeyahay haddaba xusbiyadii inamadii urur ka soo xildhibaanadii soo baxay labadii xusbi mucaarid way diideen inay inankii cabdirasaaq qanciyaan cabdirasaaqna ma u ararkaayo isna diid inuu qancaan u malaynayaa waa kaadee meelaha ka hadlayaba waxaan leeyahay xildhibaanka anigoo uu sharafiga mudan yihi xusbiyada mucaaridkaa waxaan leeyahay dee horta baashii waabay dhacaysaayo ilaahay baa la hubaayo kulle kulmiyuun baa la hubaayo inuu sooba noqone nin waliba ninkuu doonayuu hubaaye waxaan leeyahay ninkii faratoon ha la dhiso faratoon baa guddoomiyaha baarlamanka noqonaya ku-xigeenkana inankaa cabdinaasir baa noqonaya insha allahu tacaala baarlamanka waxaan leeyahay waar ha u xidhnaanina xusbiyada ha u xidhnaanina baashii waa la furayaaba hadhow toole waxaa ku biiri doontaan uunkii soo hadha sharcigaa idiin dhigay inaa kaa ku biirtaan uunka soo hadha noqonayo waxaan idin leeyahay ilaahay ka baqa ninkaa weyne sharaftale doorta ee faratoon wallahi inaanan anigu arrin iyo adduun waxba ka doonin waa nin qiimo badan waa nin weynoo somalilan dara waar ninkaa doortaan idin leeyahay intaana waxaan kaga baxay tii faratoon waxaan leeyahay cabdikariim iyo maayirka cusub cabdikariim waxaad ku soo baxday iska hor fiican waxaad ku soo baxday 26,000 wanaag fara badan baad ku soo baxday hargeysi aad bay kuu soo dhoweysay runtii nin dhal mujaahida baatay isna nin fiicana ilaahay baa kuu qoray inaad ku soo baxdo kaama abinayo waan ogahay inaad dadaal badantay karti badantay waan ogahay inaad cabdikariin wax qaban karto waxaan kuu adiga ku leeyahay runtii sida wanaagsan iyo ixtiraamkaad u dhalatay golahaaga adigoo wuxuu hirgeli jiruu gudinta halkuu ka goynayo garanaya ayuu haddana idhaa xaggeen ka gooyaa golahaaga iyo ku-xigeenkaaga hayso ku-xigeenada cuqdeed yar baa ku dhacdo anigu waa ka dawroobey hadduu xabaarku yar waayo wuu dawaqayaa wuxuu soranayaa maayirkii muxuu talow kala jiraaya runtii ku-xigeenkaaga iyo golahaaga hayso khadar masaajidkaan isku barannay waa inan fiican reer masaajidka calimataan baan isku ahayn ninaan ka dee isaguna maaha runtii waa nin aad u wanaagsan oo wadaada cabdikariim waxaa ka codsanayaa nasiibkaa idi siiye maayir iyo maayir ku-xigeen inaad 17 nin u noqotaan rag idiga fiican baa ku jira rag wanaagsan baa ku jira nin kastaa wuxuu reerkoodii iyo magaalada kaga kaabeengareeyey inuu maayir noqonayo ula hadla oo u ixtiraama rag oo dhan waxa deeqa ixtiraamkana adigu weliba cabdikariin ahaan waad u dhalatay ixtiraamay namada oo nin kasta ixtiraam fikirka khaldana xildhibaanku kuula yimaado dadka kula hor hadlin gaar ula fogo waxa tira xildhibaan waxaas way khaldan yihiin iga daawalaal runtii waxaa leeyahay xildhibaanadana waa reedhaa dee rididdaa ku degdegina haddii maalin dhaweytoolo la yidhi way furan tahay oo berigii hore arrimaha gudaha joojin jirtay rididda iminka si arrimihii guduhu way furtay maaha macnaheedu dee markaba cabdikariin iyo rida waa ninkan 26 kun buu ku joogaayo dadka isku dhicila waxaan idin leeyahay aadaa u ridina iska joogaan iminkana somalilan oo dhan annaga waxaa nala dhammaystay maayiradii marna la wada doortay waa iska dhaqan wanaagsan oo la bartay haddii cabdikariin iyo khadar wanaagsanaadaan idinkaba waan idin ogayo rag wanaagsan oo mutacalimiin aad tiinoo ridamaysaan had iyo jeer wuxuu ka bilaabmaa dagaalku isku shaandhaynta u horraysa guddiyada kelmaddan kaga baxaya weeye taana cabdikariin oo ka fiirso dee iminka dhulkii waaba lagaa xidho taa maasha allah gudubteedu way kaa biirto oo waxa ugu xul guddida ee shantaad ka dhigato ee golaha inta kale kugu colaadinayaan tiina ma jirto iminka waa kaa dhulkii la yar joojiyaba waa iska furan doontaan hal mid baan golo ahaan idin dardaaraya waxa cabdikariin oo wada shaqaysaan wasaaradda adig iyo golahaagu hawlaha guud dhulkaa ka wada shaqaysaan haddaa wax iska diidaan wasaaradda ganacsiga liisamadaa ka wada shaqaysaan wasaaradda arrimaha guduhu waa wasaaradda u maraysaan dhammaan dowladoo dhan waxaan idin leeyahay wasaaradaha ay isku dhacdaan ama xildhibaanadaada isku dhacaan TV-ga waxba isu marinina qoraal isu qora maxamed kaahin u taga wasaaraddiina arrimaha gudaha u taga haddii ganacsiga liisama isu qabsataan iyaga u taga barasaabkiinni baa jooga jaamaca jaxmado nin aad u wanaagsana halkaa mara oo wasaarad kasta waxa iskaga qabsataan wasaaraddiinna mara waa isku dhici doontaano waanigo laakiin yaanay TV noqonin 3 bilood oo horreeyaan isku dhici jirno mar dambe kamarada isku maandhaan dhicin anagu dawladda runtii waxaan kaga baxayaa xoogayaha idila joogaana waa nin wanaagsan runtii mushaarooyin fara badan buu markiiba bixiyey aad yani waa nin daacada si fiican ina cabdikariin iyo wada shaqayn doontaan khadar iyo golahaba xoogaye goolii xoogayaha tahay raggaa sidaad noola shaqaysay si ka wanaagsanba inaad ula shaqayso waxaan halkan ka caddaynayaa kamaradaha hortooda iyo dadweynahaba 24 sannadood khibradda ahaayada aan lahaa waxaan ballan ku qaadaya inaan cabdikariin iyo khadar iyo golahaba si daacadnimo loo wanaagsan aan u barbar istaagi doono haddaan xil qabtiyo haddaana qabanba inaan talada wanaagsan ee walaaltinimada leh ee waayeelnimada leh waayeelku waa caqliga ma haddaada
talada leh waan la barbar istaagi doonaa haddii ilaahayda si niyadaan u soo dhoweyn doonaa waxaan kaga baxayaa nin baa yidhi arkay nin madaxoo meel ka tegayo nin kaloo madaxa leh waan ku barbar istaagi doonaayo si fiican baa wax kuula qaban doonaa talo fiican baa ku siin wuxuu yidhi isagu intuu meesha joogay inuu taladaa fiican wax ku qabto maaha inta arrinku waxa weeye arrinku intaad meesha joogtay wixii aad qabatayna qabatay wixii kaa dhidhaayaad doonaysay inaad qabatay iyo hiigsigaagii ayaad horta qofka siinaysaa